ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم runtii anigu waxaan aaminsanahay in ay guuleysanayso wadanka Faransa taasaan aaminsanahay aniga magaceygana hadii la Cabdiqaadir Xuseen Maxamed madaxayaan ku magac dheeran madaxayo caawa Argentina waa adag tahay laakiin Faransiiskana si lamid waa adag yihiin bal qaab ciyaareedka kulamadii soo ciyaareen ma ku qiimeysay mise xulkii difaacanay sidaas ku qaadi karaa may taas kuma qiimeen labada xulna waa daayar xulna waa xul waqti badan soo ciyaaray Faransiisku wuxuu wataa ciyaartoy yar ah oo under 20 ilaa 25 wata marka saasan ku qiimeeyay maadaama hadana ay yihiin ciyaartoy sanadkii hore qaaday World Cup-ka haddana difaacanaya marka saasan ku qiimeeyay in ay sanadkan insha Allah bidnaahi kariim ay ku guuleysan waantii hadii aan aragtida ka hadlo waxa aaminsanahay koobkan Argentina cidna kama xigta waantii sanadkan waa sanadkii Messi aasti maadaama uu yahay sanadkii ugu dambeysay uu dheelay koob adduun waxa rajayay Argentina inay ku soo baxdo oo sidaas nabadgelyo lagu yiraahdo doono Messi Faransiisku xidiga fiican ay wataan Argentina sidoo kale xidiga fiican ay wataan صح labada xul waxay u dagaalamayaan in ay helaan biladii saddexaad oo koobka adduunka ah صح bal soo rajaadu adag maahan in Faransa wajahdo koobka difaacanaysa Argentina ay koobka qaado waxa ka sii sahlan midaas inay Argentina koobka qaado ha way Argentina cid ka celi karta ma jirtaba deewo ilaa halaas soo gudubtay semifinal ay imaaday cid kaga aad dartan guusha ma jirto Argentina iska leh waxa aaminsanahay ama ku hamuweynaa hadana taageerayaasha Argentina in Lionel Messi habeenkaas laastiga oo goolka guusha lugtiisa ku dhali doono markuu ugu horeysay magacaygu Cabdirasaaq Siyaad Xuseen oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool haddaan saadaaliyo kulanka weynka ay u dhaxeeya Argentina iyo Faransa saadaal iyo horta taageero way kala jirtaa saadaasha mataqaanaa waxa loo fiirshaa labada kooxda awoodooda iyo si meelaha ku kala imaadeen saawada ogsoonahay labada xulba hal mar la soo garaacsan Malayna Faransiiskana Tunisia garaacdo koox yar ahayd inkastoo leen abkooda rasmiga ah u dheeleen markaas Argentina kulanka ugu horeeyay Sacuudiga dhulka la galay anagu waxaan way toobta marka ugu horeeyay xulka Portugalkan watay xulkayga waa la reebay disi loo fiirsanayo isku fiican dadka Portugal taageereen in Argentina taageeraan ma jecel laakiin kulanka finaalka aan wax ku saadaali lahay Messi iyo xulkiisa Argentina laba hal inay ku reey karaan ha horto ciyaar adag waaye laakiin aniga waxaan saadaalinahay inay helayso Brazil Argentina yes هاي بلا طلع جول فورتو كسو دواي مغعي waxa way Axmed Xaliil Maxamed ciyaarta caawi saadaalintii yani waxa taageeray ulkor Brazil hadii laga rabay Faransa aad ku haysta inkastoo Messi ku adkeenayo koobkan uu diiday taageero Ronaldo fahad inkastoo ku adkeenayo Faransa u raba koobkan shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah